Barcelona ayaa qaab mashquul badan ku bilaabatay suuqa iibka xagaagan iyadoo ilaa haatan la saxiixatay Mikael Valle, Ilkay Gundogan iyo Inacio Martinez. Kuwa kalena waa ay ka shaqaynaysaa, laakiin sheekadaydu way ka duwan tahay intaasi oo dhan. Heshiiskii Victor Roque wiilka lagu naanayso Suarez-ka cusub ayaa halis ku jira in gebi ahaanba uu meesha ka baxo, waxaana kula wadaagayaa 3 kooxood oo heegan ugu jira inay afduubtaan wiilkan da'da yar ee reer Brazil. Sheekadaasi ayuuna muuqaalkaygu daaran yahay ee ku soo dhawaada walwalka, naxdinta iyo beer xanuunka haya taageerayaasha Camp Nou kadib markii ay maqlaan dhilada aan halkan ugu hayo. Saxiixa ugu dhow kuwa kale oo ay Barca doonayso ayaa loo arkayay wariyahankii da'da yaraa ee kooxda Atletico Paranaense ee Victor Roque oo baadigoobka heshiiskiisa ay inta badan loo arkayay in ay ku dhawaaqi karaan wiilkan hibada sare leh, halka aysan ilaa haatan waxba ka suurtagelin oo ah in ay Barca dukumiintiyada heshiiskan oo kaliya meesha kaliya oo ay ka dhimatay heshiiskan oo ahaa in la dhameystiro. Kooxda Barcelona ayaa la sugayay in ay u dirto dukumiintiyada heshiiska kooxdan xidiga ay kala soo wareynayso ee Atletico, laakiin waxa ay ku wargelisay in ayna waxba dirinba, taasi oo caragelisay kooxda reer Brazil. Kooxdan la yiraahdo Paranaense ayaa la sheegayaa in muddo 24 saacadood ay u qabatay kooxda Barcelona inay ku dhameystirto saxiixa daayarkan lagu naanayso Suarez-ka cusub. Hadiiba ay ku fashilanto in ay si degdeg ah u dhameyn waayaan heshiiskan, Atletico waxay wada hadallo la bilaabi doontaa kooxaha kale ee heshiiskan doonaya inay gacanta ku dhigaan. Kooxo waaweyn oo dunida ah ayaa dhigta u taagaya is-afgarawaaga dhex maray kooxaha Brazil iyo Spain ka dhisan, waxaana waqtigan la warinayaa in kooxo badan ay dhigta u taagayaan. Paris Saint-Germain oo ka baxayo Kylian Mbappe, Tottenham Hotspur oo weyn karta Harry Kane, Man United oo waayadan badoo doonaysay weeraryahan tan iyo bixitaankii Wayne Rooney aan helin bedel rasmi ah oo afka hore baahi u qaba ayaa dhammaantood ah kuwa quudaraynaya inay afduubtaan xidigan hibada leh. Barcelona ayay tahay inay aad uga warwarto inay weyso saxiixa Victor Roque. Dhammaan 3daas kooxood ayaana bixin kara lacag ka wanaagsan mid ay Barca bixinayso, laakiin lacag la'aanta Barca waxay sababi kartaa in ay weyso mid kale oo hiba leh. waxaan ogeyn in shalay lagu dhawaaqay mid ka mid ah hibada kubadda cagta Arda Güler, wiilkii Turkiga ama Messi-ga Turkiga siday taageerayaasha kubadda cagta ugu yeeraan. taasi ayaana sababi karta mar kale inuu gacantooda ka baxo mid kale oo isna lagu naanayso xidig hore Barca uga ciyaaray, waana Luis Suarez. Sheekadan ayaana ah mid maanta baraha bulshada lagu hadalhayo, isla markaana taageerayaasha Barca ee ku baraha bulshada iyagu aad uga xifaltama kuwa Real Madrid ay leeyihiin midka doonataanba waa layda qaadanaya, muxuu tarayaa taariikhdu hadiiba ayna lacag la socon.